بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan fariin u diro shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan fariintayda ay ku aadan tahay sidii ay u ilaashan lahaayeen nabadooda iyo xasiloonidooda meel uga soo wada jeesan lahaayeen dadka nabadiidka aan rabin horumarkooda iyo deganaanshaha bulshadooda waxaan rabaa inaan uga tacsiyo dhammaan dadka ay waxyeelada joogtada ah mar walba u geysanayaan ee ugu dambeysay falkii foosha xumaa ee xal ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen waxaan sidoo kale uga tacsiyeenayaa dadkii habeen hore ay ku soo warareen xabsiga magaalada Boosaaso ciidamadii geesiyaashaha ee ku shahiiday halkaas iyagoo difaacaya dawladnimada iyo kala dambeynta dalka waxaan runtii dhacdadaas oo ahayd dhacdo xanuun badan laakiin dhacdo dhici karta ah oo Puntland kaliya ka dhicin adduunka oo dhan ka dhacda mararka qaarkood in qorshe la maleego ku aadan in goob mucaayana hawlgal laga fuliyo khaasatan xabsiyadu waa ay ka dhacaan in mararka qaarkood qorshayaal noocaas ay ka fulaan runtii isku dayo badan oo hore ayaa jiray oo kulli fashiliyay kanna kuwii uu la mid ahaa waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan dabcan khasaaro waa dhacay maxaabiista qayb ka mid ah oo ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan waxaase ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waaga ka baryayo oo laga daba tegay in badanna laga soo qabtay qaar badanna ay halkaas ku dhinteen operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu sii socon lahaa oo uusan ku ekaan intii falka soo qaaday laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan aan rajeynayna in lagu soo afjari doono runtii waxa dhacay waxaan rabnaa inaan si official ah marka uu u dhamaado mas'uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraad uga bixiyaan warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso lagu guuleystay boqolkiiba 80 iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekeyn intii falka geysatay meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxa ka socda safayn ku saabsan in cadawgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagay in la soo ciribto dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha cid sifo argagixisa leh iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon kumana ekaan doona intii ficilka geysatay waxa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo cid kastoo ay tahay waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto waxaan kale ugu bishaareynayaa in dadkii operationkaas
fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagan abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan waxaan insha allah rajaynayaa Boosaaso oo magaalo nabdeed ah oo magaalo Soomaali badan ay ku nool yihiin ah oo magaalo caan ku ah in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka محتاجينta ah ee waliba ajaanibta ah inay soo koriso ay gacmo furan ku soo dhaweyso dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato ka shaqeysato inay soo dhaweyso sifo kasta iyo meel kasta ay ka timaado waxay si ballan qaadaysaa inaysan u dul qaadan doonin cid kasta oo la soo doonata in ay nidaam darro iyo fowdo iyo dana kale inay ka fuliso waxaan ku kalsoonahay ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan sida hagar la'aanta ay u shaqeynayaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in arrimahaasi ay soo gabagaboobi doonaan operationka hadda bilowday wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyay ilaahay idankiis oo Boosaaso iyo nawaaxigeeda looga maqlo ururo nabadiid ah oo ka jira waxaan bulshada u dirayaa fariin ku aadan inay ciidamada si dhow ula shaqeeyaan waan uga mahad celinaynaa intii hore ula shaqeynaysay iyo sida ula shaqeeyeen waxaan rajaynaynaa shaqada hadda socota inay gacan buuxda ku siiyaan loo kala harin sida caadada u ahayd shacabka reer Puntland waxaan si gaar ah u ammaanayaa dadka ku nool tuulooyinka iyo deegaanada Calmiskaad iyo Calmadow ku nool oo runtii u ah nimankaas marinaha ay maraan oo mararka qaybtood si geesilimo leh uga hortaga falalka ay rabaan una diida in ay dhagarta ay bulshadooda la rabaan ay ku guuleystaan waxaan uga mahad celinayaa shacabkaas inta aysan soo gaarinba ciidamadu in iyagu yihiin kuwa mar walba hortaagan oo u diida in ay helaan fursadda ugu habboon mararka qaarkood laga waayi maayo bulshada kuwa jilicsan oo u sahla waxa ay rabaan iyaga oo dana kooban ama cabsi u geyso waxaan u sheegayaa bulshada reer Puntland wixii waxaas ku sifooban inay ka waantoobaan waxa ay fududeynayaan waa masiirka ummadooda iyo dhallaankooda iyo mustaqbalkooda waxay maanta harsanayaan wax iska yimid ma waa wax dhiig badan ku soo daatay waa wax awooyaashood iyo aabayaashood ay waqti badan ku soo bixiyeen inay helaan nolol fiican oo degan waxaan rajaynayaa iyaguna inay noqdaan kuwii u diyaariya jiilka soo socda siday u heli lahaayeen middaa la mid ah runtii waa ay ku ammaanan yihiin bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba gaar ahaan Puntland in ay mar walba iska diido dad ajandayaal guracan leh waxaan rajaynayaa arrimaha ku saabsan amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ma aha arrimo ku dahaarmi kara ama ku milmi kara aragtiyaha siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed marxaladan adag ay la daala dhacayso dabcan dalkeena burbur soo maray burburkana waxa uu saldhigiisu ah waa burbur siyaasadeed burburka siyaasadeed waxa lagu xallin karaa in si siyaasi looga gudbo laakiin waxaan aad ugu rajaynayaa inaan la isku milmin labada qadiyadood ee ah ajando argagixiso wadato oo aan siyaasad salka ku lahayn ee asalkiisu yahay deganaansho la'aan iyo aragti loolanka siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ka dhex jira mid ka duwan oo ah inay intaba intay ka kormaraan inay iyagu ay khasab ku qasadaan oo ajandayaal ay leeyihiin ururo argagixiso caalami ah oo salka ku haya al-Qaacida iyo Daesh inay Soomaaliya ka fulaan runtii labada ajando waa laba ajando oo u baahan dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo mararka qaarkood aysan isku fiirsan iskuna haleyn arrintan waa arrin qaran waa arrin aanan degaan gaar lahayn waa arrin aan qoys gaar khuseyn waa arrin aan state gaar khuseyn waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed dawladda federaalka iyo dawladaha stateska kulli inay iska kaashadaan si arrintaas aysan ummadda Soomaaliyeed ugu fid lahayn Puntland horena way u ballan qaaday haddana way u ballan qaadaysaa in ay gacan la istaagto cid kasta oo ay suuragal tahay inay dhibaatooyinkaas
ay haysato in ay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato iyadana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo ciidamada Puntland howlgalkaas inay ku guuleystaan waxaan u sheegayaa shacabka reer Boosaaso inay nabad ku seexdaan nabad ku noolaadaan nabad ku shaqaystaan ciidamadooda ku kalsoonaadaan madaxdooda ku kalsoonaadaan waxaan u rajaynayaa guul degdeg ah waxaan rajaynayaa inay wax walba oo dhacay muddo yar looga kaban doono dabcan wixii dhacay ma yaraynayno oo wuxuu ahaa fal fool xun oo runtii aan cambaaraynayno oo ahayd in laga baaqsado laakiin qadar eeba ku dhacay waxaan mar labaad u tacsiyeynayaa askartii ku shahiiday iyagoo difaacaya sharafkooda iyo karaamadooda iyo dowladnimadooda waxaan u hambaleynayaa askarta iyagoo hadda ilaa ay markii operationku bilowday difaaca hore ku jira ee baacsanaya haraadigii firxadkii argagixisada waxaan ugu hambaleynayaa mas'uuliyiintii dowladda dhexe iyo gobol iyo degmo ilaa ay maalintii operationkaas dhacay u taagnayd waxaan rajaynayaa insha Allah ciddii abaalmarin mudan inay abaalmarin degdeg heli doonto ciddii ciqaab mudan oo ah argagixisadaasna inta hadda la ciqaabay inta dhibana la ciqaabi doono waxaan rajaynayaa inay darsin fiican ay kala kulmi doonaan sidii duruustii hore ugu dambeysay suuj iyo garmaal wixii ka dhacay iyo garacad mid la mid ah ayay shalana heleen maanta iyo beritan heli doonaan waxaan u rajaynayaa Puntland slogankeedu ama halku dhigeedu waxa weeye Puntland nabada degan oo xasiloon argagixisana ka xor ah shacabka iyo dowladaba waxaan ugu baaqayaa inay meel uga soo wada jeesadaan in argagixisada la cirib tiro cid kasta oo ay ku milmeen waxaan rajaynayaa maalmaha dhow in la arki doono iyagoo tallaabo laga qaaday waxaan bulshada reer Boosaaso ugu baaqayaa howlgallada magaalada gudaheeda ka dhici doona in ay kala shaqeeyaan ciidamada oo ay si hufan oo wanaagsan ula shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa haddii ay jiraan kuwo ku dhuumaalaysanaya magaalada gudaheedana in laga soo wada qabto ciqaabna la mariyo haddii ilaahay dhanka dhigo waxaa kaloo howlgallada lamida ka socdaan magaalooyinka Puntland oo dhan ay ugu muhiimsan tahay magaalada Gaalkacyo waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxafi Jamaal loogu geystay dilka magaalada Gaalkacyo waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ay haysteen inuu sii xoogaysto magaalooyinka kaleetana oo iyagu marka hore ammaan fiican haystay iyagana ay sii xoojiyaan dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa marxaladan inay diyaar u ahaadaan falal kasta oo suuragal ah maxaa yeelay kii dhacay Boosaaso ka dhacay xabsigeedu wuxuu tusaale u yahay inay kuwa kaloo la mid ay dhici karaan marka ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanna waxaan farayaa inay heegan buuxa galaan iyaga iyo saraakiisha iyo ciidankoodaba mas'uuliyiinta Puntland degmo kasta iyo gobol kasta ay joogaanna waxaan rabaa inay u dhiifoonaadaan arrimaha amniga mar walba oo aysan isdhigan xaalad kasta oo amniga lagu jiro maxaa yeelay inta dalku qaybihiisa ay amni darrada ka jirto ama ay Puntland qaybo ka mid ah weli ay ku sugan yihiin nimanka noocaas ah ma noqon karto xaalad u baahan in la isdhigto waxay u baahan tahay xaalad foojignaan dheeraad ah aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi